ku dhawaad konton arday oo bartay maadooyin shal duwan oo geek magaalada Baydhabo shahaado lagu guddoonsiiyay sida warkunin Firidon wariyahan Axmed Ibrahim Buule. munaasabadan oo sida heerka sare la agaasimiyo waliba u qayb galeena mas'uuliyiin ku tirsan maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya saasoo kale waliba u qayb galeena waalidiin ardayda dhigtaas iskoolkii waliba saasoo kale macallimiinta wala ka dhigaan iskoolada ka taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. munaasabada waliba ay ahayd shahaadooyin laga guddoonsiiyay ku dhawaad 4 dufcadood oo qalan jibiyay macadka caalamiga ee Al-Ikhlas oo kumid ah macallimiinta ka taala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. ardaydan geeg qalan jibiyay macadka Al-Ikhlas Educational College iyo waliba ayna haano baradeen maadooyinka shale sida umulasada nafaqo-darrada iyo waliba saasoo kale maadooyin galgadisan. anti munaasabada dareertay waliba meelaasooyinka hadalaha ku jeedina haano kumid ah ardayda qalan jibiyay macadka caalamiga ee Al-Ikhlas Educational College waliba hadalada kumid ah sidatan meelo waansaday maadaama uu ku daaray bilaan uu ku dan jeelay inga reerki samay ama kale inga reerka reew waa reerka sayti oo nagadi qod miftaax najaa waa ku taaqo ku diyaari oo isan araga haytan oo leero qod miftaax najaa magayno araga haytan oo soo qorinyo qod miftaax najaa wali bal kuwada qaaday furuga oo guul هذه ما يبين كبيرة معمود أوركله مع ومنسد أنتي على كل أسبوع كسر إلا لو كديروا صداقي يا لحبي صداقي يا لحزب حديد دير ما يبين كبيرة أنتي مع نوال بيجوم أنتي على كل ومنسد سيالي من الدرة حالة يا عافمة. The real meaning of education. gabagabadii waliba meelaasooyinta saasoo kale ku hadlay aan xukuumadda mas'uuliyiintii oo qayb galay munaasabada waliba niyo ka dheeradana muhiimadii la tuwal barashada mas'uuliyiin dardaarmeen barashada koo weyn bay bariyaasana afka Ingiriisi qortaan afka maaliga Ingiriisi qortaan iyo siin dardaarmeen waa ka hadala runtii kan koobs hormariyaasan haaway afka maaliga siin qoranay qorade iskoolaha la garanay qorade buugaga jaran afka maaliga la hormariyay qoran buugaga jaran oo isiyaan ka barada qortaan markiin ka horeeyay iskuulka Al-Ikhlas Educational College usoo qalan jibiyaan ardayna oo kale Axmed Ibrahim Buule KGS TV Baydhabo Janaay.